Sideed buug oo cajiib ah oo la mamnuucay wax yar kadib markii la sii daayay. Buugaag mar la mamnuucay oo laga dooday. Buugaagtu waa mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee dadka ka caawiya inay fikiraan, dareemaan, arkaan oo ay eegaan siraha bulshada. Waxay ka hadlaysaa aragtiyaha, sinan la'aanta iyo wixii la mid waxayna ku riixdaa bulshada inay wax wanaagsan qabato. Tijaabadan, buugaagta qaar ayaa laga mamnuucay fariintooda. Halkan waxaan ku xusnay qaar ka mid ah. Theater Interior ee uu qoray Jed Salinger. Wax yar kadib markii la sii daayay, buuggu wuxuu la kulmay mamnuucid isticmaalka tixraaciyada galmada iyo sida uu kor ugu qaaday dabeecadda caasinimo. Dugsiyada qaarkood waxay u maleeyeen inay aad u xun tahay akhristayaasha dadayar, laakiin waa in la akhriyaa iyada oo ay ugu wacan tahay sawirradeeda jahwareerka dhalinyarada, caafimaadka maskaxda iyo fogaanta. Si aad u disho Mockingbird, waxaa qoray Harper Lee. Buug mar la mamnuucay balse ku sii socday inuu ku guulaysto abaalmarinta Pulitzer waa kan. Waxaa laga mamnuucay iskuulada qaarkood adeegsiga aflagaadada jinsiyadeed, mawduucyada kufsiga iyo cadaalad darada, iyo waxyaabo kale, laakiin waa in la akhriyo sababtoo ah fiirinta cunsuriyadda iyo sida ay u dhiirigeliso dareenka. Dhammaan wiilashu maaha buluug, waxaa qoray Georgem Johansson. Buug laga mamnuucay lagana saaray maktabado badan oo dugsiyeedka Maraykanka waa kan. Sababtu waxay ahayd doodeeda ku saabsan aqoonsiga xadgudubka iyo khibradaha shakhsi ahaaneed. Laakiin dadku waxay soo jeedinayaan inay akhriyaan si ay fikrad uga helaan odadka madow iyo queerka. Raadinta Alaska waxaa qoray John Green. Buug kale oo laga mamnuucay inuu yahay mid aan ku habboonayn akhristayaasha dadayar waa kan. Sababtu waxay ahayd waxa ku jira cabitaanka, sigaarka iyo waxyaabaha galmada, laakiin dadku waxay aaminsan yihiin inay tahay in la akhriyo sababtoo ah waxay leedahay jawaabo qaar ka mid ah su'aalaha aan dhammaanteen ka qabno nolosha iyo dhimashada. Adventures of Huckleberry Finn waxaa qoray Mark Twain. Buug kale oo cajiib ah oo lagu xujeeyey lagana mamnuucay dugsiyada qaarkood ayaa ahaa kan. Waxaa loo fogeeyey muujinteeda jinsiyada iyo sinaan la'aanta Ameerika qarnigii 19aad, laakiin waa mid maanta la akhriyo oo caadi ah iyadoo dadka u sheegaysa sida ay tahay inaan taariikhdu dib isa soo celin. Chapter 22 waxaa qoray Joseph Heller. Meelo dhowr ah laga mamnuucay fariinteeda dagaalka ka dhanka ah iyo luqadda adag. Chapter 22 waxaa loo tixgeliyey mid aad u xun, sidaas darteedna laga ilaaliyo inay dadku gaaraan. Laakiin waa in la akhriyo iyada oo ay ugu wacan tahay kaftankeeda quruxda badan iyo wejiga xafiiseed ee ay muujinayso. Sheekada Handmaids ee Margaret Atwood. Dugsiyada iyo kooxaha qaarkood waxay mamnuuceen buugga Atwood nuxurkiisa galmoodka, dhaleecaynta iyo qaadashada dystopianka ee xuquuqda haweenka. Dad badan ayaa u arkayay mid meel ka dhac ah, laakiin waa in la akhriyo maadaama ay dadka ka warqabto waxa dhici kara haddii xuquuqaha aasaasiga ah la duudsiyo. Dunida cusub ee geesinimada leh waxaa qoray Aldous Huxley. Buug kale oo laga mamnuucay muujintiisa bulshada waxa uu ahaa Dunida cusub ee geesinimada ah. Waxay tustay bulsho aan dadka lagu maamulin cabsi, balse ay tahay nasteexo iyo mashquulin, waana arrin ay waajib tahay in la akhriyo maadaama ay dadku isweydiinayaan waxa ay tahay xorriyadda dhabta ah.